السلام عليكم وبركاته walaalayaal maanta waa maalintii afraad aan Antarctica u soconay maanta waa maalin aad u weyn waayo maanta waxaan gaarinaa qaaradii Antarctica oo welina cagta dhigina insha Allah marka waxay noqon doontaa qaaradii toddobaad aan cagta dhigay oo toddobadii qaaradood markaas soo maray insha Allah Soomaalina waxaan rabnaa inaan adduunka oo dhan adduunka oo dhan ka warkeeno oo maxaa la quruxda Ilaahay abuure oo adduunkana aan xitaa soo aragno marka insha Allah waxaan videoga soo socday aan tusi Antarctica-ran hadda aan marino sida u aragtiin quruxda soo socota aan duubi doono oo nasiibus insha Allah waa taas hadda qayb yar aan yar duubi laakiin waxa soo socda yani sida u sii ogaatiin la sii socda ساعة وبركاته walaalayaal maanta waa maalintii afraad aan qiblada raadinayno si kastaan ka hor tukade laakiin waxaan rabaa inaad tuso qiblada xitaa 5 daqiiqo ka hor way isbedeshay mar 5 daqiiqo ka hor aan video yar duubayo dhinacan yar ahayd laakiin maadaama doontana socoto hadda qibladii dhinacan ay ahaatay maalintii ugu horeysay sida xasuusanaysiin xaggan ahayd maalinta labaadna dhinacan ahayd maalinta saddexaadna dhinacan ahayd hadda maalintii afraad waa arkaysiin dhinacan ay sii socotaa marka waxaan isleeyahay malahan waqtigan maxaa la ka soo laaban Antarctica inay malahan ilaa xagga aan gaarno Allahu a'lam laakiin kolley saasaan rabaa inaan la socodsiiyo insha Allah waxaan sameynaa hadda qibladaasaan tusi sida u ogaatiin maanta dhinaca loo tukan doono insha Allah kolley ka hor la sii tukaray fajr la sii tukaray laakiin waxaan rabaa inaan tusoon qiblada waayd ayna isla socda Soomaa inta kalena qolkana qof aan la qaybsadaa marka qofkii hurdana kama kicini karo marka waqtigeyga waan iska tukaraa laakiin qiblada waxaan tusaan qofka marka hurdada ka kacay ayaan salaamay assalaamu calaykum walaalayaal maanta waa maalintii aan Antarctica ka dagayna waaba qasab inaan waddankeena xitaa inaan xaysiino marka insha Allah xaggaas si nabad aan ku gaari doonaa waan la wadaagina sawiraha iyo videos It's noisy. Okay, thank you. Still around? Wow. This one is very close. I feel like we're surrounding them. Could we maybe all come on one side?
flukes come up, whenever it flukes, it goes down and dives down, it goes feet, and then in about 5 minutes or so, it will probably come up again. And What kind of okay, exactly. What kind of whale was this? Does anybody know? An idea? So it was a humpback whale. Exactly. Oh, okay. So we can identify them on multiple things. Their fin is very iconic because really what they have is like a little bump on their back, and it has like a little tiny fin. All the other fin whales, sei whales, and blue whales all have a very prominent fin. Okay. On top of that, the humpback whale is one of the whales that flukes pretty much every time it dives down. It might come up after it dies. Diving? It's not gonna move. We can always use Elizabeth for shuttling if we fit 11 in a queue, so we actually should be able to manage. Yeah, copy. British Antarctic Survey, and the British Antarctic Survey called this Portal Point because this one. saacagta barakaatu walayaal waxaan hadda ka degay
qaaraddii Antarctica qaaraddii ugu dambeysay aan cagta dhigo 7 qaaradaha adduunka hadda waan cag dhigay hadda Antarctica aan joogaa meeshii barafka waa arkaysiin wow ما شاء الله تبارك الله قروح لينا نواني دوبي إن شاء الله walaalayaal quruxda ilaahay abuuray baleega inaba caadi maaha Based on the footsteps. Okay, sure. I'm waiting. Perfect. Yeah, could you go to the other side? السلام عليكم walaalayaal maanta waxaan joogaa Antarctica Portal Point meesha laga galay oo hadda waxaan ka degnay maxaa la dhahaa qaaradda Antarctica marka qofkii Soomaaliga ugu horeeyay qaaradda Antarctica ka degayahay taasna waxaan rabaa inaan calankeena xaggan saaro oo niyadda dadkeena u dhiso oo u cadeeyo wax kasta rabtid inaad gaari kartid niyadda gelisid marka insha Allah guul ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtiin taasna la wadaagaya assalaamu calaykum thank you
the Argentinian Would you rather research fight center. one horse-sized penguin or 100 penguin-sized horses? So these are cactus with the red bird flying away. That's you will get them tomorrow when you're online. This one, they got a lot more. Well, that's right. Yeah. But you can see all the